بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومشتاق وحنا شركة شرايد وقبتي ما قيب كمدة صحافة السومال نقرانا هرقيسة عند معينا نقولها الله لبس يابود ومركزي مالمها ندن بيهي حوين براها بالشدة سكة لدوان لود وذي waxay haayeen arimahaasi mid waxay hayd in markaasi sharafta iyo cirdiga iyo markaasi qofnimadiisa lagu ciyaaro xilbaanka barka jaamac batuun si kala markaan u dhigana aniga laftigeyga ma aragtay sharafteediyana meel lagaga dhaco anoo qof dumara waxa weeyaan muhiim iyo qasabna aan ahayn mar kasta in ma aragtay hadii aan guursanayo iyo hadaan guursanahay dadweynaha ma aragtay ogaadaan iyadoo qasab hay waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkayga iyo maankayga qaba in barka jaamac batuun iyo anagu aan nahay laba qof oo markaasi istoortay heshiiyay kadibna isguursaday wabacdayna ilmo ilaahay ku arsaaqay waxaan leeyahay dadiyowga inta wax ka dhex raadinaya ma aha intani tii wax laga dhex raadin lahaa maaha nimanka siyaasadeynaya barkad baa gabadh guursaday aanay isku qabiilahayn oo ay uga jeedaan magayo qabiilada kale maadaama sugdi qabiilka yahay waxaan leeyahay nimayahood dibis ugu noqda habla dhasheen ugu yaraan waa qabtaan waxa weeyaan waa la dhalateen haddaydan u dhixin waa u dhixi doontaan oo waa guursan doontaan marka intii wax laga dhex raadin lahaa maahe dib ku noqdo baan leeyahay waxa kale aan sheegayaa anigu mushtaaq ahaan waxa weeyaan waxyaabo waxa jira dhaqan 200 oo sanadood soo jiray waa run oo anigu shakhsiyan aan waxba ka qaban karin shaqo fara badan iyo hawl badan u baahan aniguna aan dabcan ahayn qof keligii jabin kara deerka caynkaasa waxaan samoodayay in ay 200 oo sanadood kadib sidii dhaanto oo isma lahayn 40 sanadood ka hor ama 30 sanadood ka hor caynkii lahaa ayaa istii leeyahay oo dhalinyaro far badan oo wax baratay wax fahmay ayaan islaha way kamid yihiin dad iyagu wax fahmay inaanay waxba ka jirin dhaqanka caynkaasa anoo miirkayga iyo maankayga qaba ayaan guursaday barkad عادينا أنا أقول رقمنا عين كاسي ديوجا سامسيهين شخصيا ما مسني وأنا سببت كانت أنا أقول نكاسي أنا كوقنا أحسن وحويان صوت هذا والسحرنين وحويان عفمات كي قبا مسكحيا وحويان شرهان بأنا قبا إن نقرصده ومركزي الشينو تسواتا إن قفتو مرة waxa weeyaan intii meediyaha timiday tiri warqadii la igu meheriyay baa tan ah waa dareemi kartaa waxa keenay halka waa nimanka siyaasadeeyay waxa weeyaan in sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo waliba tayada lagu ciyaaro lacagayowga ku bixiyay markii la yiri hagaajiyay shaqooyinkiina lacagayowga ku bixiyay in markaasi ninka waxa weeyaan leeyahay halala kaco simbal marka warqadii aan anagu isku mehersanay baa tan ah sababtaan u keenay meediyahana waxa weeye maadaama oo ilmahayga ruuxu jira ku dhawaad 6 bilood waxa weeye bishii lixaad wax yar baa uga dhiman 6 biloodna Soomaali Maxamed gaar ahaan dadyowga siyaasadda ku jira oo wax weeye ayaa qaabab kala duwan u adeegsanayay marka arinkaygaasi anagu qasab ma haynan meediyaha intan imaadna anagu waan iskuursanay ama meherkaygi baa halka ka dhacay wax qasbayaan u garan maayo qasabna ma ahayn barkhadad baan ka dhashay weydiistay dadkiiba markii daba lala dagaalayo leeyahay siday ku dhacday nin caynkaas inuu gabadh caynkaas guursado diidaysan ugu garan maayo waa nin Soomaali muslima isku dhaqan nahay waxa weeyaan isku bi'aadna nahay marka waxyaabaha sheegaysan anu garan maayo muhiimku waxa weeyaan inaan idin sheego in anagu iyo barkhadan isguursanay oo markaasi ilmaha ayagaan dhalayna ceebeynaysan ma aragtay idinku caruur dhalay intiina badani waxa weeyaan hooyooyin iyo aabbo meeran ah hadaydan noqon doona ilmaha yar inta leeg waxa weeyaan ceebta iyo waa caynkan iyo sidan buu xaaladaba socotaan inaan idin idhaahno sida moodaysan ma he waa caynka waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo
nimanka leeyahay shaqadiina hagaajiye kadibna aniga sharafteyda iyo cirdigayga dhulka jiidaya haddii aad shaqadiina hagaajiye oo leeyahay wax weeyaan hablo sharaftooda u korkoreysaan oo lacaga ku bixinaysaan in maxaa la yiraahdaa sharafteyda iyo qof bini'aadam oo ilaahay abuurtay rabbigiina sameeyayba intuu ina abuur hadana ina karaameeyay inta inagoo gaf iyo qalad maalin walba galayna astura maanagoon qalad galina waxa weeyaan waxa noo ceebaysaan noo daba joogtaan sharaftayda iyo cirdigayga dhulka u jitaan iyo karaamadan leenahay waxaan u maleynayaa wax badan baydaan fahansaneen hadaa fahansantiin waa yeelaysaan tani waa adduunyo aakhirana way dambaysaa marka waxaan ku gunaanadayaa wax badan saa doonaysaa noqon maayaan anagu noqon mayno oo yeeli mayno inaan intaan soo hor fadhiisano idhaahno guurkaygii baa caynkan ahaa sidan buu ahaa wax weeyaan tamaanta keentay iyo in warqada meherka aan idin hor keenana waxa keentay uun jiidashada faraha badan arrinkaas sagaalka wajiga kala duwan u sameeyeen reerka iyaga waxa weeyaan doonteen in ay inta kala xadaan qaarkood aniga igu soo dirtaan dhibaatadan maray tuka badan ay marisaan oo ah waxa weeyaan marka horeba anoo dareemaya culays fara badan oo igaga imanaya dhaqamadii jiray haddana tan maanta jirta halkan iska lahaa xoogaa waad ka yar baxday tan maanta jirtana aad igu darteen hadalku isaga iska badanay waxaan idin leeyahay waxa wadan suurta gali mayso boqolaal caayuu ka sharaf badan yahay oo ka wanaagsan yahay exactly aniguna boqolaal dumar oo wax weeyaan sharafteyda aniga si kale raba madartiin u sheega baan ka sharaf badanahay sharaftuna qofku wax weeyaan sida dadka loo sheega maahay waa waxa dadku arkayaan marka aad baa u mahadsantihiin waxaan idin sheegay uun bay ahayd oo markaas si saxaafadaan ula hadlay qaybtan inta aan idin sheegay muuqaalka qaybta sare ku sheegay waad mahadsan